soo dhawaada gabadhan cunug yar oo bombala ay soo qaadatay kadib meeshaan ay la soo fadhiisatay si ay lacag ugu hesho. Gabadhan kale oo wadada maraysay ayaa arkayso waxay u malaynaysaa marka inay tahay hooyo dhibaataysan lacagtan intay siisay waxay ku dhahay cunugaaga cunno siiso. Iyadana markii lacagta la siiyay intay qaadatay alaabteeda oo dhan aruursanay kadib meeshii isaga tagay. Laakiin gabadhii lacagta siinaysaa waxay ku dhahaysaa waxaas cunug uma ekee maxaa waaye idana markii ogaatay in la arkay intay cunugii turtay meesha isaga cararay. Cunuga ay bini'aadanka ka dhigaysana waa kana ay sidaan u ekaay. Midii sidii u soo ordaysa booliskana intay qabtaan waxay ku dhahayaan adiga yaa ku ceyrsanay maxaa orday gacantan maxaa ku heysay nutusi. Waxay arkayaan marka in ay lacag wadato oo ay lacagta la ordayso gabadhii kale intay u timaaday waxay dhahaysaa gabadhan dibi ma laha aniga lacagta siiyay iska daaya. Iyagana xoogaa ay ku dhaganaayeen ugu dambeyn way iska daynayaan meeshina way isaga tagayaan. Midana gabadhii waxay ku dhahaysaa soo bax aniga ay raacaysaa sidii ay u soo wadana waxay keenaysaa meel maqaayada oo iyadu leedahay. Waxay weydiinay marka meeshan maxaa waay maxaa ii keentay. Iyaduna waxay ugu jawaabaysaa meeshan aniga iska leh hadda kadibna meeshan aad ka shaqay doontaa lacag dabana in xad lama rabo. Iyada oo hadalkii loo waday waxay arkaysaa lacag meesha saaran intay baxday soo qaadanay laakiin markii aragtay in loo jeedo way iska dhigay. Midii dukaanka iska leed midaan waxay ku dhahaysaa hawshaada fudeed waaye markii oo qof ku yimaado oo dalifkiisa aasiisid oo lacagta ku siiyo lacagta sida u soo wadisid toosa meeshan u gelinay. Lacagta markaad meeshan gelisidna maxadiisid oo meeshida uga leexanay. Haddana inta baxdid orod dharkan iska soo bedel soo nuqbayso wajigana make up soo marso si ay macaamiishiidu kaaga cabsan. Maalmo kadib qoftan shaqadii way la qabsatay waatana marka iyadu shaqadeeda qabsanayso. Meeshii ay lacagta ku jirtay soo furaysaa kadib maskaxdeeda waxa ku soo dhacayo alla yaxado. Lacagtii meesha ku jirtay oo dhan ay soo baxsanaysaa kadib jeebkeeda gashanaysaa banaankan u soo baxay si ay wax ugu soo gadato. Laakiin midii meesha iska lahayd ka hor imaanaysa waxay weydiinay marka ma bixirtaa meel miya u socotay. Iyaduna waxay dhahaysaa qashinka meeshaas yaalo aan rabay ina banaanka u soo bixiyo laakiin midaan way fahmaysaa waxay ku dhahaysaa lacagta aad hadda soo bixiyo gacanteeda isoo saar. Iyaduna ugu dambeyn way isdhiibaysaa markay aragtay in la qabtay lacagta intay soo bixday ku wareejinay. Maalmo kadib qoftii waa la waaniyay oo waxa lagu dhahay wax dhan ha xadina. Iyaduna waatana waxay bilaabtay inay si fiican u shaqaysato oo lacag badan ay shaqaysay. Labadooduna ganacsigoodu si wanaagsan ugu socdaa laakiin balaaya ka soo dhaxgali doonto. Maalin ayuu odagan derbi chiefka waxa uu imaanaa gabadhii kaligeed oo dukaankii looga tagay. Wuxuu ku dhahaa adiga iyo aniga waxaan isla ahayn derbi chief laakiin adigu waxaad bilowday in aad shaqaysato ma ogtahay inay derbiyadii ku xiiseen. Iyaduna midkan waxay u sheegaysaa in waxaas ay mar hore ahaayeen haddana ay ganacsi bilowday oo ay shaqaysato. Wuxuu bilaabaa marka inuu handado isagoo ku dhahayo waa inaad lacag siisaa haddii kale dukaankan oo dhan waa guba. Kadib waxay ku wareejisay lacagtii iyadu sida goonida ay macaamiisha u siiyeen. Markii uu baxayna wuxuu ku dhahay isbuuc walba lacagan ka rabaa waana ku imaana. Maalintaas kadib midii dukaanka iska lahayd waxay ku soo laabanay dukaankeedii oo cidlo ah iyo waraaqadan oo meeshii loo geliyay lacagtiina laga qaatay. Midiina waa tana saaxiibkeed hore ay derbi chiefka isla ahaayeen ay u imaatay lacagtii ay soo xadana way kala qaybsadeen. Iyaga oo meeshii wada taagan ayaa waxa imaanaya gabadhii dukaanka iska lahayd iyo boolis ay hore u soo wadatay. Odagii derbi chiefka ay waa kana waa la xiray waxaana lagu soo eedeeyay inuu handaday gabadhaas kadib markii laga soo arkay kaamiradii dukaanka ku xirneed. Midana mar labaad ayay gabadhii dukaanka iska lahayd iska cafinay maadaama lagu qasbay in ay waxa sameeyso. Isla maalintaasna labadan shaqadoodii ay dib ugu laabanayaan muuqaalkuna intaas oo ka leegno saar. Soo dhawaada sheeko waalan hadaa maqasheen waatan oo kale duqdaana u jeedin gabadhan iyo wiilkan iyada dhashay habiina intii soo raaceen waxay yimaadeen maqaayadan iyagoo maqaayada jooga waxa uu imaanaya midkan Chris lagu magacaabo. Isla markiina hooyadoodu shikilay ku bilaaba kuwana waa yaabihiin iyadana ma qasna waxay taagantahay ninkan iska barta ninkan ii sheegayo waaye. Wiilkeedana markuu hadalkaas hooyadiis ka maqla midkii Chris la dhahayo wuxuu ku dhahaa Janice man sii kartaa waxa rabnaa in hooyadan la hadalnee. Isna ma ka diidayo Janice ay ka codsadeen waa ka ogolaanaa woon isaga tagaa. Kadib hooyadoodu waxay ku dhahayaan adiga ma waalantahay waxa shugaansanaysaa cunuga 3 jeer dhali karto. Waxay u sheegay in aysan shukaansaneen taas bedelkeeda ay guursanayso. Intaasna waxay u raacsiinayeen in ay iyagu cilaayeen ninkaana ay ula joogtay inay kelinimada isaga ilaaliso. Idinka 3 sano markii la joogaa hal mar ii timaadeen anigana intaas cilama aha kari qof ila joogaan u baahanahay marka. Iyada oo aanan hadalkooda dhageysana meeshii isaga tagay. Subaxdii markii la gaaray maamada guriga lagu soo gargaraaca markii ay furtana waxay arkeen inay kuwii ay dhashay yihiin waxayna weydiinayeen maxaa rabteen labadiina. Waxay ku dhahayaan waxa meeshan u nimaanay inaa ku raali gelino midkaan haduu yahay go'aan sax oo adiga qaadatay waa kugu raacsanahay. Iyadana markii hadalkaas ilmaheeda ka maqasho way ku farxeen waxayna u sheegay inay gudaha soo galaan. Gabadheeda waxay weydiinayeen marka saaxiibka Chris aaway waxa rabnaa isagana inaa raali gelinay. Qof la sheegay ma dheer isla markii uu imaana isagoo alaab banaanka ka keenay. Wiilkeeda Chris wuxuu weydiinaa maxaa qabataa laakiin hooyadiisa ugu jawaabay waxay dhahaysaa waa sawiray kala kacsan waxayna tusay sawir darbiga suran oo kamid ah sawiradii oo hore u sawiray. Kuwan iyagoo sawirkii daawanaya ayaa midkii Chris ah saaxiibadiis wuxuu
wuxuu weydiisanaa xoogaa lacaga ma haysaa iyadana wuu isoo bixinaya. midkaan markii uu lacagta qaato wiilka iyo gabadha ay duqdu dhashay waxay ogaanayaan midkaan inuu duqda lacag leh inuu ka qaato ula joogo uusan wax kale ula joogin. waxay go'aansanayaan inay iska baxaan ay gurigeeda aadaan laakiin waxay arkayaan midkii Chris ahay oo lacagtii uu duqda ka soo qaatay gabar kale siinayo. gabadha ay duqdu dhashay way gacmo fududahay isla markii taleefan soo qaadanay sawireena ka qaaday dibeyna gudaha ugu laabanayaan si ay hooyadood u soo tusaan. duqda oo isku diyaarisay inay banaanka aado ayay sawirkii tusinayaan iyadana waatana way soo dhaweynay. waxay taagantahay marka midaan dhib ma laha waa ina adeertiisa Emma. wiilkeedana wuxuu u sheegay ninkaas wax uu sameeyay ina adeer lagu sameeyay. isla markiina duqda qaylay ku bilaabay waxay dhehaysaa waxaan maxay igu sameynaysiin farxadeeda ma ka xuntiin. laakiin gabadheeda waxay ku dhehaysaa waxaan ka codsanaynaa inaa hal wax inoo sameeysid waxaasna haday shaqay waayaan waxaan ka ballan qaadaynaa inaana mar dambe idin soo dhaxgali doonin. waxay weydiinayaan marka maxaad rabtiin inaa idin sameeyo. labadooda isku ballaminayaan kadib midkii Chris ayaa duqda wuxuu ku dhahaa biri waxa aadina jasiirada ku yaala Giriiga. laakiinse iyada ma la hadlayso markii uu sababta weydiiyana waxay ku dhaheen wax ayaa rabaa inaa kuu sheego. wuxuu weydiinaa maxaa waaye waxaas waxayna ugu jawaabaysaa ma awoodo inaa aado jasiiradahaas ku yaala Giriiga. sababtana wax kale ma ahan ee wixii aan lacag haysto dhan adiga kuu khasaariye anigana lacag ma haysto marka adiga markaagii waaye lacagta inaa bixisaa laga rabaa. intuu soo istaago duqda ku xanaaqa wuxuuna dhahaa sidee ku awoodo inaa ii sheegto been intaas la eg. ma is weydiisa qof dhalinyaro sida anigoo kale sababta ula joogi karo qof waa yeela sida adigoo kale. duqda wiilkeeda intuu yimaado wuxuu ku dhahaa hadda waa inaa banaanka u baxdaa isaguna wuxuu taagan yahay ma aamini karo inaa adiga 3 bilood kugu khasaariyey. kadib isagoo xanaaqsan oo cusbada ku kaakacsanta oo meeshii isaga tagaa. duqda haddeer oo miyirkeeda soo laabtay waxay taagan tahay ma aamini kari inaa doqonnimo intaas la eg sameeyay. aniga waxaan diidaya kelinimada haddana kelinimadeedii la dib ugu laabana. laakiin gabadheeda niyadda u dhisaysa waxayna ku dhehaysaa looma baahna hadda kadib inaa kelinimo ka cabsato aniga iyo walaalkay waxaan go'aan ku gaarnay hadda inaa soo baxdo oo inaga inala noolaato. iyaduna hadalkaas markii ilmaheeda ka maqasho aaday ugu farxee. subaxdii dambe way soo baxayaan duqda alaabteedii u soo qaadayaan si ay gurigooda u geeyaan. kadib nin duq ah oo deriskooda ah arkayo wuxuuna gabadhii ku dhahaa midaan mahooyada ay ii sheegaysaa. gabadhuna isla markii waxay meesha isku bareen ninkii deriskooda ahaay iyo hooyadooda. midka deriskaana duqdii oo shikilay ku bilaabaa iyadana markaan go'aan iska qaadanayso ilmaheeday la tashanaysaa. iyagana midkaan way ku raacayaan maadaama ay isku da'yihiin. muuqaalkan intaanu ku ekaya hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar. gaaray maalin Raawul isagoo ka shaqeynaya shaqadii alaab dhaqida ayaa waxa uu iimaanaya ninkii booskiisa ahay wuxuuna ku dhahaa xafiiskayga igu imaado marka alaabta dhameysid. markii uu Raawul xafiiskii imaado wuxuu ku dhahaa wax kale ma kuugu wicin ee waxaan rabaa inaan shaqada ka buriyo. Raawulna markii uu weydiiyay sababta shaqada loogu burinayo midkaan sabab macquul muu sheegay. kadib markii shaqada laga soo buriyo wuxuu yimid meeshii uu kaarka qamaarka ka gada jiray wuxuuna go'aan ku gaaray inuusan maanta kaar gadan. laakiin markii uu soo bixi rabay ayuu wuxuu arkay kaar qamaar oo dhulka yaalo. taariikhda kaarka ku qoran markii uu fiiriyo wuxuu arkay inay 6 bisha tahay sidoo kale inay maanta taariikhdu marayso 8 bisha. wuxuu ogaaday inuu kaarkan yahay kaar maalin hore la isticmaalay laakiin jeebku iska soo gashana. xaaskiisa guriga joogta markuu u yimaadana wuxuu ku dhahaa shaqada waa liiga soo buriyay waliba sabab la'aan. xaaskiisa oo murugsanna waxay shiday TV-ga qamaarka isagana wuxuu u sheegay inuusan kaarka qamaarka maanta soo gadin. iyadana waxay taagan tahay niyadda isaga dhiso iska daawac camal. wuxuu soo bixinaa marka kaarka qamaarka uu dhulka ka helay xaaskiisana arrintan aad ugu farxay. kaarkana mar hore ayaa la isticmaalay inuu wax u tara mayl aha. laakiin gabadhii TV-ga ka soo hadleeda waxay dhahay kaarkii asbuuci hore lacagtiisa ma la qaadan. marka kaarka haysid fiiri waxa laga yaabaa inaad guulaysid. Raawul xaaskiisana waxay dhahay kaarkan wuu noqon karaa sababtoo asbuuci hore la isticmaalay. ugu dambeyn Raawul iyo xaaskiisa waxay ku guulaysanayaan kaarkii waxayna qaylinayaan qaylo intii ay awoodeen. hal sano kadib Raawul wuxuu sameeyay shirkad aad u weyn oo guulaysatay isagana boos ma iska dhigayo ee shaqaalayaashiisa ayuu la shaqeynaa. midkan shaqaalayaashiisa kamid ah intuu yaabo wuxuu ku dhahaa adiga taajir tahay marka shaqaalayaasha maxaa ula shaqeynay. Raawulna wuxuu dhahaa aniga jecel midaan sababtoo ah waxa ogahay shaqaalayaasha dhibaatadii maraan. xoogaa kadib Raawul waxa uu imaanaa duqdan darbi jiifta ah. midana waa taqaaniin waa midii hal sano ka hor shaqada ka soo burisay. waxay ku dhaheen ninkii aan ayaantii kugu bedelay wuxuu jabsaday kombiyuutarkayga. wax kastoo kombiyuutarka igu jira iyo lacagtaydiina wuu qaatay. adiga guushaada waa maqlay marka aada kugu hambalyeena. adiga oo fiirinayo aqoontii aan isku lahayn ayaantii hore hadda waxaan ka rabaa inaa xoogaa lacag ay siisid. wax badanna ma ahan ee xoogaa lacag le ka raba adiga. Raawulna wuxuu ku dhahaa hadda aniga lacag ma ku siinayay laakiinse shirkadayda shaqo waa kaasii karaa. asxaabay Facebookan meeshaan saaran aniga iskale follow ga soo dhaha muuqaalkan intaanu ku ekaay muuqaalkii asha la soo galiyayna shirkadda hawada ka saartay. duqdaanaad u jeediin waa taajirad isnacday. ninkaana waxaa lagu magacaabaa Raawul wuxuu ka shaqeeyaa beer ee iyadu leedahay. intay u wacday waxay ku dhahaysaa shaqada waa kaa buriyey. Raawulna wuxuu ku dhahaa sidee ii buri kartaa aniga 10 sano ku shaqeynayay. waxay u sheegay inay soo heshay nin shaqada u qabanayo waliba lacag yar ka qaadanayo. Raawulna wuxuu ku dhahaa soo ma ogid xaaskayga inay hadda cunug yar ii dhashay. sidii aan hore idinkugu sheegay duqdan waa taajirad isnacday. maskiinkii Raawul waxay u sheegay inay shaqada ka burisay go'aankan uu yahay go'aankeedii ugu dambeeyay. xoogaa kadib Raawul isagoo wadada iska marayo ayaa waxaa soo
soo wacday xaaskiisii waxayna ku dhaheen wax kale ma kuu soo wicin ee waxaan rabay inaan ku soo xasuusiyo inaan noo soo qaado kaarkii qamaarka waxaana laga yaabaa caawa inaan ku guulaysano 500 oo milyan. Raa'ulna xaaskiisa wuxuu ku dhahaa ma soo iloobayay ballana ka qaado waaye. Marka uu xaafadiisa yimaadana isaga iyo xaaskiisa waxay isku diyaarinayaan inay TV-ga ka daawadaan kaarka qamaarka si ay qamaarka ugu guulaystaana waa inay helaan 5 nambar oo sax ah. Nambarka ay haystaan iyo nambarka koowaad way islahaanayaan midka labaadna way islahaanayaan ha ka reebin midka saddexaad sidoo kale way saxayaan laakiin nambarka ugu dambeeya way ku guuldareysanayaan sidaana mar kasta way ku dhacdaa. Raa'ul xaaskiisana niyaday u dhisay waxayna dhahaysaa mar inaa guulaysana waa laga yaabaa caadi iska dhig. Raa'ulna xaaskiisa ku qaylinaa wuxuuna u sheegaa inay guuldareysteen loona baahnaa inay guulaystaan. Xaaskiisana intay fahantay waxay ku dhahay caawa waxa ka qaldan ii sheeg. Isagana ugu dambeyn wuu u sheegaa inay duqdii uu u shaqeynayay shaqada ka soo burisay. Xaaskiisa intay yaabtay waxay weydiinaysaa sabab ay ku soo burisay 10 sano maadan u shaqeynin. Raa'ul maalintii xigtay wuu soo baxaa si uu u soo raadsado shaqo kale. Ninkaanu intuu u yimaado wuxuu ku dhahaa inaa shaqaale u baahan tihiin maqlay. Isagana wuxuu u sheegaa inuu u baahan yahay nin alaabta dhaqo haddii uu diyaar yahay maantana inay midaan shaqadiisa tahay. Raa'ulna intuu farxo wuxuu ku dhahaa hadeertan ayaa bilaabaa shaqada. Midkaan meesha iska lahna isoo raac aniga shaqada ku soo tusaayo ku dhahaa. Raa'ul wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo shaqo kale kadib markii uu duqda 10 sano u shaqeynayay. Sidoo kale muusan iska dayn kaarkii qamaarka ee maalin walba uu gadanayay. Maalin walbana nasiibkooda oo xumaay waxay ku guuldareysanayaan inay waayaan nambarka qamaarka. Ilaa laga soo gaaray maalin Raa'ul isagoo ka shaqeynaya shaqadii alaab dhaqidda ayaa waxa uu imaanaya ninkii booskiisa ahay wuxuuna ku dhahaa